jaamac waxaan ka nimid Soomaaliya waxaan wada walaalkay oo xanuunsan oo beeshin ah wuxuu la labada lugood jilbaha mid bidix ay aad u darneed iyo gacmaha siiba gacanta midigta ah oosan waxna ku cuni karin waxna ku qabsan karin wejiga ku dhaqan karin xanuunkaas jira awdiisa waxaan u keenay Hindiya Hyderabad dib waxaan keenay isbitaalka la yiraahdo Kimis Hospital waxaan la kulnay laba dhaqtar oo la yiraahdo Dr. Nagarjuna midna la yiraahdo Yusuf alxamdulillah markii koowaad waxaan ka bilaa visit kadib waxaan ka bilaabnay labada jilbood jilbiya qalliin lagu sameeyay 3 isbuuc kadib alxamdulillah waa fit oo noqday lugihiisii ay fiicnaadeen si boqolkiiba boqol haddana garabka midigta ah iyo ayadana x-ray inta saar waxay noqotay inuu asna qalliin lagu sameeyo qalab la geliyo alxamdulillah qalabkiina waa la geliyay oo bishan waxaan jeclahay 20 keedmeed insha Allah qalliinkaasna waa lagu guulaystay gacantii waa hadda ayadoo weli ay tahay oo exercise u socdo physiotherapy u socdo ayuu hadda wuxuu rabo ku xubsan karaa caawin u noqon kartaa guusyaha baab xirashada raashin cunitaanka weji dhaqa iyo kulli waxta gacanta weji saande marka hore afka muusan gaarsiin karin gacanta dhib ay ku ahayd alxamdulillah hadda waa boqolkiiba boqol alxamdulillah waxaa mahadsan dhaqaatiirtii macaawisay oo qalliinka ku sameeyey Dr. Nagarjuna iyo Dr. Yusuf alxamdulillah sidaas awoodeed way mahadsan yihiin waxaan ku darayaa inaan caafimaad qabo oo lugiga ku socdo alxamdulillah ilaahay mahadiis gacantana saas kor u qaadayo qalban saas dee waxna ku dhigana kor u qaadayo wataa weli ay gacanta cusub tahay weli inuu waxay ku qalan tahay 3 isbuuc soma way ka yartaa saddex isbuuc way ka yartaa markaan waxaan ka ilaalinaysaa markaan nabarka uu bogsaday inay qodbaha ka furnay waxaad ka ilaalinaysaa 6 bilood hore gacanta bogsato ama bokoorada ku qaadato 6 bilood hore waa ilaalinaysaa runtaa marka hore taas labada waxa aad u daray bidix xasaasi u qalloocday qaybta banaanka aad bay soo haysatay kamana socon karaynin tan midigta ku dhawda labada qaybood oo haysatay rooga markii dambe la kala bedelay yaan ku sameynay la kala bedelay wataas labada ma kaa bedelay imanka waa isku toosin lagu haagay loo ciyo laga biiyey qaybtii lafta sare iyo lafta hoose waa la bedelay waa balancing halkan waxaan ku hayaa x-raygii markii hore garabku aad bay ayuu dhaawacmay garabkay aad ka caawinaysay ee aad gacanta kor u qaadi karayn hadaan ka aragto wataas labadii lafood baa isqabsaday laftiisana kor bay baxday gacantii kor bay guurtay markii dambe ee lagu sameeyey kala bedelka garabka kala bedelkii garabka jaamac waa 72 jir wuxuu noo yimi Kimis Hospital noogu yimi isagoo aan socon karayn aan saay karayn labada lugoodba aad u xanuunayaan lugta midigtu aad u qalloocdo ayuu noo yimi wuxuu kale aad ku cabanayay garabka oo gacanta laabatada garabku aad u damage garoobay oo aan kor u qaadi karayn kadib markii aan ku sameynay check lagu sameeyey iyo raajisooyin iyo la saaray waxaa loo sameeyey camaliyadda kala bedelka labada jilba markii hore loo sameeyey kala bedelka kadib markii qalliinka hore lagu guulaystay ee uu si fiican u socday ee uu recovery ka sameeyey waxaa bil kadib loo sameeyey qalliinkii camaliyaddii gacanta oo iyadana loo sameeyey kala bedel garabka si uu gacantii uu isticmaalo kor ugu qaado wax ku cuni karo badhamadiisa maryaha ku gashan karo imanka alxamdulillah aad iyo aad buu fiican yahay maxaad dareemaysaa adeerow imanka aad buu fiican yahay imanka diyaar baa tahay wadda ku laabato إن شاء الله waxaan ku rajeynaynaa safar salaama wano iyo kuleeta dambe insha Allah